qisadan waa qiso xanuun badan dhammaan caalamka gilgishay sanadihii 1912 waana qisadii markabkii weynaa ee Titanic kaasoo ahaa markabkii adduunka ugu weynaa. Markabkan waxaa laga lahaa dalka Ingiriiska. injineerkii dhisayay waxay ku qaadatay muddadii uu waday dhismaha muddo 2 sano. waxaa kala qayb qaatay 15,000 oo shaqaale ah waxaana lagu dhisay tiknoolajigii ugu dambeeyay. 1912 ayuu ka baxay xeebaha Southampton ee dalka Ingiriiska, kadibna wuxuu ku xidhay xeeb ka mid ah xeebaha Faransiiska, iyada oo weliba ulajeedkiisu u ahaa siduu u qaadi lahaa rakaab aad iyo aad u fara badan. kadib waxa uu bilaabay socdaalkiisii ku aadanaa dalka Mareykanka. inkastoo ay saadaashu ka digtay dhibaato ka dhalan karta cimilada badda, haddana taasi Titanic wax dhiga uma dhigin. injineerka markabka ayaa sheegay isaguna markabkan inaanu ugu talagelin inuu shil galo, weliba suurtagal ma aha buu yidhi inuu xaalad amni la kulmo. Titanic wuxuu ahaa sidii magaalo weyn oo dul sabeynaysa biyaha. dheehashada muuqaalkiisa guud iyo joogitaanka gudihiisa isugu markhaati furayay inuu yahay mid loo dhammaystiray dhammaanba agabkii looga baahnaa in magaalo laga helo, hadday noqoto goobo caafimaad, goobo lagu tukaamaysto iyo goobo lagu caweeyo amaba lagu shiro. hoolal ayu nooc ayuu lahaa. wax kastoo magaalo laga helana waxay ahayd mid isaga laga helo, waxaana dhammaantood ku idlaa tujaar, ganacsato, faqiiriin iyo dad nolol maalmeedkoodu galay inay ka adeegtaan markabka dhexdiisa. haddaba isagoo socdaalkiisii ku guda jira ku aadanaa Mareykanka uu kagana dhaqaaqay xeebaha Faransiiska ayaa waxaa sikadiisa hal mar loo arkay baraf weyn oo sida buurtii oo kale u samaysan oo u soo jira waxaan aad u fogeyn. xawaaraha uu markabku ku socdo iyo leexashada uu leexan lahaa ayaa noqotay iyaduna mid aan isyeelanin. kadib waxaa soo gaadhay dhaawac aan kasoo kabasho lahayn. maalmo kadibna isagoo badweynta safarkiisii kusii jira waxaa la dareemay inay markabka si tartiiba ay biyuhu u soo gelayaan. xaaladaasoo la yaabiyo tacajub ku noqotay dhammaan dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa markabka. waxay isku dayeen inay qalabka biyaha dibadda u tuuro ay adeegsadaan, balse biyaha ay saarayaan iyo kuwa soo gelaya ayaa waxa batay kuwa markabka gudihiisa soo gelaya. lala xidhiidhay qaybaha gargaarka degdega ah, balse may suurtagelin oo waxaa la yidhi gurmadku wuxuu idinku imanayaa muddo 4 saacadood gudahooda. waxaana kala batay wakhtiga ay gurmadka u baahan yihiin iyo wakhtiga layidhi gurmadku wuu imanayaa, maadaama ay haysteen muddo 1 saaca. waxaa si tartiiba loogu sheegay dadkii dhammaan inay xaalad amni darro soo korodhay. wakhtigan dhammaan ayaa laga wada dareemay markab gudihiisa aba qaybta hoose inay biyo qoyaankooda soo wada gaadhay. doomaha badbaadada ee markabka saaraa ayaa iyaguna aad iyo aad u tiro yara marka loo eego bulshada saaran markabka. waxaanay wadayaashii markabku dadweynaha u sheegeen markabku in yar kadib inuu degayo, maadaama ay ahayd saacaddu goor dambe 11 ilaa 12 habeenimo. waxaa la bilaabay doonyihii markabka saaraa in la furfuro si loogu badbaadiyo dadkan markabka saaran. furfuritaanka doonyaha markabka saaran ayaa iyaduna muddo aad iyo aad u dheer qaadatay, sababtoo ah waxaan lagu talagelin inuu shil dhici doono. dadkii dhammaantood waxay ka wada yimaadeen dabaqii hoose iyagoo naftooda ka badbaadsanaya inay biyuhu hafiyaan, waxaana isugu yimaadeen dabaqa dhexe si ay naftooda u badbaadsadaan. biyaha markabka soo gelaya waxay ahaayeen biyo aad iyo aad u barafa. doonyihii waa la furfuray, waxaa la saaray dadkii tujaarta ahaa si ay naftooda u badbaadsadaan, balse daadgureyntaas iyadoo socota biyihii markabka soo gelaya ayaa iyaguna buux dhaafay oo dabaqii dhexe ayay soo koreen. dadkii naxdin ayaa la soo kulantay, dhammaantood waxaa soo martiday geerida. qof kasta oo ka mid a rakaabku wuxuu yaqiinsaday inay tahay habeenkiisii ugu dambeysay ee nolosha. laydhkii markabka ee gudaha iftiiminayay ayaa isaguna wuxuu bilaabay inuu si tartiib u bakhtiyo. dhimashadii dadka ayaa si toos oo bilaabantay iyo qarqoonkii biyuhu ay qarqoominayeen bini'aadamka. dad fara badan waxay isku tuureen badda iyagoo door bidayay inay gudaha markabka u dhaanto badweyntu. dagaal iyo israsaaseyn ayaa ka dhacay markabka gudihiisa, isagoo qof kastaa doonaya inuu doonto karo. waxaana loo kala baxay faqiir iyo taajir. waxa ah xornimo ay ku baxaan waayeen dadkii tujaarta ahaa ee doonayay inay naftooda la baxsadaan. daadgureyntii iyo islayntii oo socota ayaa waxa bilaabantay inuu markabkii dhexda ka kala go'o, waana wakhti ay gaadheen biyuhu dabaqii ugu sarreeyey. qayb ka mid ayaa waxay bilowday markabka inay badweynta quusto, isla markaana qaybtii fayoobayd waxaa jiidanaysa qaybtii quustay. dadka wakhtigan imika intii badneed way dhimatay, inta soo hadhay aad bay u yar tahay.
doomihii 60-ka loogu talagalay waxaa la saaray dad 20 ah sababtoo ah dadka tujaarta oo qura ayaa laga ogolaa doonyaha in lagu badbaadiyo. Intaa kadib waxaa bilaabmay degitaanka qaybtii labaad iyadoo ay jiidanayso qaybtii markii hore degtay. Dadku dhammaantood waxay xajisanayeen biraha markabka. Hase ahaatee markabku waa uu socdaa oo intii badnayd badda ayay gudaha gashay. Saacaddu waa 2 habeenimo. Habeenku waa madow yahay, badduna way madowdahay. Kadib waxaa bilaabmay markabka dhammaantii inuu wada quuso. Intii doonyaha ku badbaaday ee doonyaha saarnaydna waxay waayeen gurmad degdega. Kadibna baddu maadaamay kacsaneyd cimiladuna ay aad iyo aad u xumayd, intii kalena way qarqoomeen markii ay waayeen gargaar degdega. Doomaha badbaadadu waxay yimaadeen 4 saac kadib ayay yimaadeen. Waxay badbaadiyeen dad aad iyo aad u tiro yar. Dhammaan intii kale halkaasay ku halaagsantay. Meel u jaan iyo cirib dhigay waa la waayay markabkii la odhan jiray Titanic.